وقفوا جورتدو ومحي برميجوا ejaculation أما بيبحها دقدقة أي waxa afka qalaad lagu yiraahdaa premature ejaculation ama biyabaxa degdega ee xilliga galmada xanuunkan oo keena in qofku uu awood u yeelan waayo inuu xajiyo biyaha minida ah xilliga galmada iyadoo dhaqaatiirtu badankoodu ay isku raaceen in rag qaar ay ku biyabaxaan wax ka yar 30 second ilaa 2 daqiiqo inta u dhaxaysa marka qaarna uu qofku biyaha xajin waayo isagoo wali hawshiiba bilaabin xanuunkan ayaa noqday mid farabaas ku haya dhalinyarta qarniga nool haddii aynu sida kale u dhigno iyadoon la odhan karin waa xanuun weyn haddana way adag tahay in ninka dhalinyarta ahi uu tago dhakhtar uu soo bandhigo inuu ka cabanayo xanuunkan dhagayste sida aynu wada ogsoonnahayba caafimaadku waa shay muhiim u ah saldhigga nolosha waxaa suurtagal ah adigoon is ogeyn inaad tahay qof ay dhibaatadani haysato inaad guursato maalmaha ka mid ah muddo yar kadibna aad ogaato inaad tahay qof aan control lahayn xilliga galmada lagu guda jiro taasina waxay ku sababi karto lamaanaha waji gabax iyo raaxo la'aan dissatisfaction of marriage gabadh ka mid ah gabdhaha caalamka ee ku nool ayaa jaraa'id online ah ku soo qortay Soch.com jaraa'iddaas la yiraahdo Soch.com ku soo qortay cabasho ay kaga cabanayso ninkeeda iyadoo ciwaan uga soo dhigtay my husband doesn't satisfy me in the bed oo macnaheedu yahay ninkeygu iguma qanciyo sariirta akhriste dumar badan oo caalamka ku nool ayaa ragooda ay dhibaatadani la soo daristay iyadoo ay habboon tahay in haweeneydu ay ninkeeda ku baraarujiso inuu tago dhakhtar nuuca psychological doctor ah ama therapy sexual healing expert ah haddaba biyabaxani waxa uu dhacaa waqtiga uu ninku ama gabadhu ay ku guda jirto galmada iyadoo ragga qaar ay suurtagal tahayba in wax ka yar 1 daqiiqo uu biyabaxo warbixin uu soo saaray journal ka soo baxa dalka Mareykanka oo loo yaqaan American Medical Association Journal wuxuu tilmaamay in rag badan iyo dumar badan kuwa oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 59 boqolkiiba 14 aanay galmada ku raaxaysan sabab la xiriirta biyabaxa lamaanahooda awgood halka boqolkiiba 26 aanay rabin galmo haba yaraatee aqriste dhagayste waxaad maanka ku haysaa in aanay xanuun ahayn in ninka biyabax badani ku yimaado waqtiga uu ku cusub yahay guurka taasoo ay ku wacan tahay raynta uu galmada sexual excitementga uu hayo balse muddo yar kadib aanad biyabax doonin adigu la qabsan doona taasina waa caadi oo waxa loo yaqaanaa normal situation haddaba qaybta xigta ee fiidiyogan waxaan ku qaada dhigi doonaa maxaa keena premature ejaculationka la soco oo nagala soco Suldaanka TV